الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال ميل با جوجتان iyo si walba noo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka taakuleenta ciidamada barnaamijka caawa waxa martiin ugu ah Farxaan Muuse Cige Farxaan Xidig oo ah xubin kamid ah guddiga taakuleenta ciidamada barnaamijka caawa waxaan ku eegi doonaa rabiraalaha haduu ka noqdo doorka shacabka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan dhiirigelinta iyo taakuleenta ciidamada ugu horeen Farxaan ku soo dhawow barnaamijka taakuleenta ciidamada waan ku soo dhawahay waa mahadsantahay ummadda Soomaaliyeed daafaca adduunka joogtana waxaan leeyahay meel walba joogtiin habeen wanaagsan maalin wanaagsan waan ku soo dhawahay TV-ga qaranka Soomaaliyeed waan ku soo dhawahay su'aasha waraysa barnaamijka dan ku furno door noocee ay shacabka Soomaaliyeed ka qaadan karaan dhiirigelinta iyo taakuleenta ciidamada waxaan halkan u fadhinaa caawa mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta intii xididka dhiiga wadaninimo uu ku jiro intii dalkooga danaynaysa intii dalkooga iyo calankooga iyo diintooda iyo diidooda jecelba waxaan leeyahay habeen wanaagsan soo dhawaada waxaan leenahay maanta horta waxaan joogay khudbadii madaxweynaha loo furay ama maalintii la furayay kalfadhigii saddexaad ee golaha sare iyo golaha hoose qaranka ummadda Soomaaliyeed matala madaxweynaheena sharafta badan ilaahay ay noo daayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inoo soo doortay iyaga oo shicibka afkooda ku hadlaya oo ka turjumaya dareenka shacabka Soomaaliyeed waxayna tusaysay oo inay dareenka shacabka ay ahayd habeenkii la doortay 8 bishii labaad sanadkii tagay waa kii ciidanka iyo shacabka kala baqayay si kala jeeday habeenka isku darsameen ee gaariyada wada raaceen ee wada farxeen ee wada tamaashaadeen waxa weeyaan waa taariikh guud iyo dibadba laga taageeray dawladeena ama madaxweynaha cusub waaga bariyay wuxuu leeyahay marxalado kala duwan waxa weeyaan wuxuu soo halkii godkii habeenka ku jiri jirnay kuma jirin mise habeen iyo dhaar buu soo maray soo mar waqtigu uu ku arka mar imika waagi si fiican buu bariyay wixii xuma iyo bahla galeentii iyo meeshii aad ku dhacaysay iyo hoggii waxa weyn waagi baa bariyay marka waa la wada arkaya intii waagu soo cadaanayay sida cadceed imika si fiican bay u soo baxday waa bariyay ama cadceed soo baxday sacab lagu madaboolo marka waxa weeyaan waxay ku tusaysaa aan waxaan ka qayb galay ama aan ka qayb ahaa socodkii madaxweynuhu haw nabadda markii hore iyo dib u heshiisiinta u xoobsiibtay markii dambe marka shicibkii ama dadkii kamid ahaa ee ka qayb galay baan ku jiray waxa weeyaan de waxaad moodaysay ina maaragtay mawjad markuu hirka roobku markuu doo webiga ama biyuhu socdaan hirku sidoo isku ama baddu markay soo buuxsamayso hirka say u soo kicinaysa ay shacabka Soomaaliyeed kolba gees ay ka soo baxay oo iskugu yimaanayeen oo madaxweynuhu walibana dadka dhex socday sawirkaasi wax mala awaala ma ahayn wax la sameeyay ma ahayn wax qof sacab xoog lagu soo saaray ama soo baxa leeyma jiro qof kastiba isaga isxilqaamay kolka maanta caawa waxaan halkan u joognaa ana waxaan mar walba la sheekaystaa halyeeyada Soomaaliyeed iyo qaranka ciidankeeni darbigii Soomaaliyeed hadday ir tahay iyo hadday bad tahay iyo hadday dhul tahay ciidanka wax weeyaan maadaama aw shaqadii ama hawsha la igmaday hay tahay wacyigelinta iyo taakuleynta hawshan ka qabanaya inaan khibrad dadkii u lahaa iyo siday ahaan jireen aan ka wado marka caawa waxaan aad ugu bishaaranayaa ummadda Soomaaliyeed mid horta wuxuu yiri marka miiga ama diyaaradan miigan 22 ila sax ninka akademiga ee ciidanka Soomaaliyeed wuxuu ahaa miiga 22ka qiimaha uu leeyahay ma lacagta ku baxda ninka askariga qura ee akademiga qiimaha ay islahaayeen iyo miiga 22ka nacam de qof iyo bir isku ma aha ee saddex kharashka ku baxayay
ninka akademiga ama askariga Soomaaliyeed ee akademiga galaya kharashka ku baxa iyo kharashka lagu soo iibiyo diyaaradda miiga ee cirka la leysa isku mid bay ahaayeen iyo Allah u naxariistay madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto naxariista jannada ka waraabay ayuu nin ciidan iiga sheekiyay haddana nin kale oo ciidankii iyaguna deyrka ahaa ummadda Soomaaliyeed ee halyeeyadii adduunka laga baqi jiray ama dibaxyadii Afrika loo dhanayay ayaan la sheekaystay wuxuu yiri Farxaanow ciidanka Soomaaliya waa maanta joogta markii iyadoo dawlad jirto ayaa ciidanka la odhanayay waa malaa'igtu tii ilaahay halkay ku maqantay ilaahuna og yahay ma aha malaa'igta nacam wax loo leeyahay ma aha aan u midhi buu yiri waa sarkaal Soomaaliyeed oo ifka ku nool oo Muqdisho jooga oo wada sheekaysanay oo sheeko dhab ah oo dhacday iyo sheekay oo badan oo loo baahnayn halkan inaan kala sii hadlo marka waxa weeyaan wax malaa'ig loogu bixiyay buu yiri ma gaajoodaan ma baahdaan ma baryootamaan waana heegan mar walba marka iyadoo dawlad jirto oo mishaar qaadanayaan oo dalku sidan maanta burburkaana ku jirin iyo yabyabkan ama dawladdan iminka soo kacaysa aan ahayn baa malaa'ig loogu yeeray marka malaa'igtii markii loogu yeeray maanta ka xaq leeyihiin sababtoo ah duruuftay ku shaqeeyaan bilaa mishaar bilaa agab kolkii malaa'ig la leeyahay miig bay wateen diyaaraday wateen dubaabaad bay wateen hubkoogu u dhanaa wax malaa'ig loo lahaa nacam ninka askarigii waan baahanahay ma oran jiray waan baahanahay ee waxa la siiyo qoriga intuu tiiriyo ma oran jirin marka tii dawladdii oo agabka u dhanaa oo qaran hay ahaayeen maanta iyadoo oo sidaa ah inay maanta ay ku adkaystaan oo naftooda dhiigooda inoo daadiyaan ay yiraahdaan maartay cidla kagama tegi karo oo dabayshu iyo siigada ku dhacdo oo kolkuu noqdanahan gurigiisii wax laga shiday waa malaa'igde marka waxaan leeyahay malaa'igta Soomaaliyeed ciidankeena halyeeyada Soomaaliyeed hadday yihiin boolis hadday yihiin military hadday yihiin qolada diyaarada hadday yihiin kuwa badda intuba midna mid kama dhaco waxa iyaga loo oran Farxaan aan ka dhacgalo waxaa jira urur isku taagay dhiirigelinta iyo taakuleenta ciidamada oo ku soo wada adoo raaliya waxaan sawirhan arkayo inaan dhamaystirto oo taliyaha ama ciidanka ninka soo joogay malaa'igta la soo shaqeynay maanta kuwa la shaqeynaya sida caanood oo kale iyo gorodoo kale iyo maxamed xaashi oo kale rag badan oo ka magacaabi kara halkan inta badan damooda magacaabi kara okay aan soo noqono waxa qadka telefoonka ku jiro Axmed oo xubin kamid ah ururka midnimo qaran isla markaas oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka Axmed hadana maqlis ku soo dhawow barnaamijka taakuleenta ciidamada qalabka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الله يواد السلامة هي ملك جوكتين ولا كان حدق أدينا ولا لا أجدن في السلامة هي وانوه waxaad ka mid tahay ururka midnimo qaran oo u istaagay dhiirigelinta iyo taakuleenta ciidamada doorka muxuu yahay ciidamada ay ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo kaalinta dhiirigelinta aad ka qaadan kartaan hadaad tiin urur oo u istaagay inay dhiirigeliyaan iyo taakuleeyaan ciidamada walaal wasageen aad baan idin salaamayaa mar kale ciidamada annaka waxa waaye waa lafdabarkayaga waan ognahay inaan wadankii uusan xornimo iyo uusan ku naaloon karin hadduusan maaragtay ciidan lahayn ciidan qaran iyo booliis iyo nabad sugid iyo nabadda ciidan suga hadduusan lahayn walaal inaan wadankaas uusan wadan shacabti ah oo maaragtay maqaamku lahaa inuusan joogayn marka annaka ciidamada waxay noo leeyihiin arrin aad iyo aad ugu weyn annagoo waxaan is abaabulnay thousands ah oo dhalinyaro ah kuwa jaamacadaha dhigta kuwa waxa waaye maaragtay shaqeeya kuwa waxa weeye ilaahay iskuul dhigta marka waa kacdoon dhalinyaraan samaynay sidii ciidamadayada iyo qarankayaga aan garab istaagi lahayn u dhiiragelin lahayn sharaftii ay lahaayeen iyo maqaamkii ay lahaayeen ay ku soo celin lahayn Axmed waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool misna marba diyaar u ah inay taakuleeyaan ciidamada
isla markaana ka qayb qaataan dhiirigelinta yoolka ururka midnimo qaran loo aasaasay muxuu yahay walaala midnimo qaran sideedaba waa midnimo iyo qaran waaye waxay iskugu jirtaa wacyigelinta waxay iskugu jirtaa baraarujinta waxay iskugu jirtaa oo muhiimka ugu weyn ah oo hadeertaan aan focuska aan saarayna waxa weeye ciidamada qaran waaye ciidamada gabdhaha iyo wiilasha dhibicda dhiigga ugu dambaysa noo hurahaya oo dhaxanta noo taagan oo annaka waxa waaye nabadgelyadeedii sugahaya oo aan ku seexano ku soo toosno sideen u garab istaagi lahayn ayakaa maaragtay aan u siin lahayn tan ugu mudan oo ugu horeysa aan u siin lahayn marka aad iyo aad bay priority noogu tahay walaal tan iyo markii la aasaasay ururka midnimo qaran maxaa qabsoomay aa qabateen walaalle waxaa noo qabsoomay guulo badan baa noo qabsoomay waxaa noo qabsoomay in maaragtay aan qaraxii disasterka ahaa oo soobe inaan maaragtay qayb weyn ka qaadanay inaan maaragtay aan aruurin iyo baraarujin badan samaynay inaan gobolada iskaga nimid in waxa weeye maaragtay hadeertaan markii uu qaraxyadii dambe dhacahayeen xataa waxa weeye maaragtay inaan intaan shirar qabanay aan sidii aan maaragtay aan ugu diri lahayn intaan is aruurino hadda fasaxii baa soo dhow iskuullada in maaragtay ardadii qaarkood kuwa dhakhaatiirta iyo neersiyada intay fasax qaataan 6 bilood ay wadankii aadaan oo kale shir weyn baa noo soo socda waxa weeye maaragtay taakulayno badan baan ka qayb galnay wacyigelin fara badan baan ka qayb galnay qaybta Canada oo waxa weeye maaragtay oo ayakana dhinacaas aad iyo aad bulshadii uga wacyigeliyay oo ayakana waxa weeye maaragtay qaybo badan oo bulshada ka qayb qaatay wax badan baa noo qabsoomay walaal shirweynahan aad sheegtay ee soo socda in la qabanayo muxuu yahay doorka looga hadlayo walaal doorkan uga hadlayna waxa weeye ciidamadayada see u garab istaagnaa waay kelmad oo uu sameeyey qof faala warkayga oo kiyuwaliskayga ka mid ah oo ah ama ciidan noqo ama ciidan taakuleeya noqo ama ciidan taakuleeya noqo labadaas waxa weeye mid u dhaxaysa ma jirto qofka hadduusan ciidan ahayn waa inuu taakuleeyo ciidan noqdo waa inaan ciidankayaga waxa weeye maaragtay aan garab istaagno hiil iyo hooba la garab istaagno hadeertaan wiig isbuucii hore waxaan samaynay maaragtay waxaan soo galnay 24 live baan soo galnay oo aan maaragtay aan bulshada aan ku faafinaynay accountka ciidamada oo lacagaha lagu dirahayo oo ay noo soo gudbiyeen dawladda iyo ragga culimada iyo noo soo gudbiyeen maaragtay aan faafinay aan gaarsiinay waxa aniga iyo 4 wiil oo kale oo midnimo qaran ah baxday iskuulada iyo meelaha maaragtay xarumaha Soomaalidu ku ay iskugu yimaadaan xaafadaha ay degan yihiin meesha community-gu u badan yahaan tagnay kaararkii baan qaybinay qof kastaba wuxuu awoodo oo awoodiisa ah waxa weeye maaragtay ciidamadii qof kasta dadkii oo dhan waa diyaar ma malayn kartid qof kasta waxa weeye maaragtay suu diyaar ugu yahay oo arrintaas uu maaragtay ugu qanacsan yahay uu jecel yahay inuu wadankiisii hadduusan joogin inuu maaragtay uu jeebka gacanta geliyo marka arrimahaas baan aad iyo aad walaal hadeertaan focuska u saaraynaa waa garab istaaga ciidamada sharafta la weeye gabdhaha iyo wiilasha arrintaasna waxa weeye arrin naga go'an waaye marka arrintaasaan aad u midda kaloon aan raba inaan ku daro dad badan oo wax diray oo xawilaadaha markii ay wiilasha dirahayeen $20 $30 $50 accountka ciidamada ku riday isla markiiba 2 daqiiqo ka bacdi message u soo dhacay message-kaas uu leeyahay qof hebel lacagtaadii waan helnay annakii oo waxa weeye maaragtay maamulka accountka ah waad ku mahadsan tahay inaad maaragtay ciidamadaada soo taakulaysay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay message-ka qofkii u soo dhacaya message-ka markuu u soo dhaco qofkii waxa weeye maaragtay wuuba farxaya wuuba kala badbadanaya dad badan ay soo wacay oo la maaragtay lacagtii saa markaa meesha ugu ridnay isla markiiba message-kaana soo galay oo ay leeyihiin lacagtaadii waa helnay waana ku mahadsan tahay arrintaas arrin aad aniga ii farxad gelisay wey
waxaad ku sugan tahay saan filaya magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka waa halka ugu badan ay ku nool dad Soomaaliyeed ma qabataan kulamo wacyigelin ah oo lagu farayo dadka inay ka qayb qaataan dhiirigelinta taakuleenta ciidamada maadaama ciidamada ay yihiin kuwa har iyo habeen u taagan sugidda iyo ammaanka dalka walaal waan qabanaa annagana waxa weeye TV-ga midnimo qaran aan ka soo galnaa live-na waan ka soo galnaa bishii sida waqtiga sabtiga ay noo tahay oo fasaxa shaqooyinka looga joogo baan waxaan samaynaa bishiiba 2 goor baan waxaan ku qabanaa meel community ah oo Coil Community Center la yiraahdo baan waxaan ku qabanaa shirka wacyigelinta community-ga uu iska wareysanayo gudihiisa wadankiina uu iska wareysanayo wadankii sidii uu xalka ku gaari karo sidii annakii aan nabad iyo horumar iyo aan ku heli karno baan iska wareysanaa waxa nooga soo baxana dadka waxa weeye ciidan qaran iyo ciidan haddii aan lahayn inaan maaragtay nabadna aan la helayn xuduudihii maaragtay aysan maaragtay safe ahaanayn bal iyo dibad maaragtay bad iyo birina waxa weeye maaragtay lagu soo cadowgu uu ku soo maaragtay halis ugu jiro marka waxaas oo dhan conclusion-kaas oo dhan waxaan ugu soo caaruurinaa taageerada ciidamada qaran waxaan u sheegnaa inaan maaragtay wadankan aan joogno ay dadku taxi payer yihiin oo qof kasta oo maaragtay taxi payer yahay taxi payerkaasna waxa weeye maaragtay booliiskaasna waardiyeynayo na sugahaya oo nabadgelyadaas aan ku seexanayno maanta sugahaya inay yihiin dadka taxi payerka sida annagoo kale iyo dadkii wadankan u dhashay aan joogno marka inaan annakiina waxa weeye maaragtay annagoo xataa dibadda joogna inaan taxi payer noqono oon taxigii bixino qofka muwaadin ma noqon kara hadduusan taxiga bixin xaqu wadanka ku leeyahay hadduusan bixin xaqaas oo maaragtay gelahaya dadkii xaqa maaragtay u lahaa sida military oo kale sida booliiska oo kale marka annaka maadaama aan ognahay walaal hawlaha qaarkii situationkaygu siduu yahay wiilasha iyo gabdhaha isxil qaamay oo maanta u istaagay inaa maaragtay ay wadankooda difaacaan isagoo xaaladda ku jira wadankooda inay difaacaan wiilasha iyo gabdhahaas maaragtay aabayaasha ah ayagoo waxa weeye hooyooyin iyo aabayaal ah intay dadka qaateen dadkii difaacahaya dadkaas inaana waxba ka hagran inaan militarigaas waxa weeye maaragtay dhibicda dhiigga ugu dambaysa haddayna siiyeen annagana shilinkan ugu dambeeya inaan siino baa naga wada go-an oon maalin kasta aan dadka ku baraarujinaa ugu dambeyntii waxaa ku daawanaysa kumanaan Soomaaliyeed oo adduunka daafeeda ku nool fariinta u dambaysa adrees maxay tahay Axmedow walaal fariinta ugu dambaysa oo dirayo waxa waaye dhalinyarada special aniga nin dhalinyaro baan ahay dhalinyarada badan aan la hadlaa waxa waaye dhalinyarada ina maaragtay maanta 75% baan nahay wadanka future-kiisa uu qurux badan yahay inaan maaragtay aan istaagno oo aan maanta fadhiga ka kacno inaa gabdho iyo wiilalba inaa maaragtay ciidamada galno booliiska galno volunteers aan ugu shaqayno annaka maanta calankan quruxda badan iyo wadankan aan haysano oo safar country-ga oo maanta aan ku faanayno oo ilaahay na siiyey laguma keenin wax ciyaar ah laguma keenin kumuusan imaan maaragtay dad kale kumuusan imaan hawlay geliyeen waxa weeye Soomaali baa leh aabayaasheen oo maaragtay xornimada noo keenay waa iyo Soomaali iyo intii maaragtay damiirka Soomaaliyeed lahayd oo halgami jirtay oo maanta na soo gaarsiiyay wadan qurux badan iyo calan leh oo safar country aan soo gaarsiiyay waxaan idinka codsanayaa Soomaali weynay iyo walaalaha iyo inta ay dhageysanaysa inaan la feel garoobin maanta waa toojka naloo dhiibay oo naloo soo annaka gacanta maanta 21st century-ga aan joogno aan gacanta ku qabanay inaan la feel garoobin weeye inaan gudbino jiilkayga naga dambeeya aan u gudbino sida aabayaasheen iyo awoowayaasheen ay nagu soo gudbiyeen Soomaali oo mid ah Soomaaliya oo qurux badan Soomaaliya oo caafimaad qabta nagu keeneen inaan annakana aan ugu dhiibno kuwa maaragtay ilmaheena waxaan waa dhaxalkeena wax ciyaar geli kara ma aha dal iyo dibadba waa inaan ka istaagno waa inaan qaaraan ka bixino qof kasta meeshuu joogo walaalo waa inuu qaaraan ka bixiyo ciidamada la taageero ciidamada biyaha lala daba qaado
waxa waaye maaragtay qof kasta waxbuu awoodaa qof aan wax awoodin ilaahay ma uumin every individual waxbuu awoodaa aan maaragtay ma awoodayda aan kaashano biyaha ciidamada ka daba qaadno waxa waaye maaragtay aan cuntada ka daba qaadno aan dhiiro gelinno meel kasta aan uga hambaliyeyno aan la shaqayno aan ciidamadeeda la shaqayno dawladdeeda aan la shaqayno qarannimaan rabnaa dhibaato waan ka daalnay waad ogtihiin waxa weeye waxaan haysta dal iyo dibad iyo qurbo waxaa nagu haysta ma malayn kartiin waxa halkaan annaka nagu haysta ilmaheeniyo waxa weeye jeel ka buuxa annakiyo waxa weeye maaragtay daryeel aan haysan oo waxa weeye maaragtay dalkaaga wax kaaga fiican lama arka dalkayga aan dhisano arrin walaala saasaan kusoo gabagabayn lahaa gacmahana aan isqabsano guul iyo gobonnimo soomaali baale waana guulaysan doonaa insha allah aad ayaad u mahadsan tahay axmed oo ku nool wadanka maraykanka magaalada minneapolis oo xubin ka mid ah guddiga urur isku magacaabay midnimo qaran isla markaana ka qayb qaato dhiirigelinta iyo taakuleynta ciidamada axmed waxa uu barnaamijyo wacyigelineed iyo aruurin dhiirigelin ay ka sameeyaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka maraykanka sidaan u jeedno daawadayaal oo aad la socoteen waraysiga axmed waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka taakuleynta ciidamada markaan farxan xidig farxan saa u jeedid ururka midnimo qaran waa dhalinyaro isku tagtay diyaar mu ah inay ummadda soomaaliyeed gaarsiiyaan sidii door ay ugu qaadan lahayn taakuleynta ciidamada dhiirigelin ay marka maxaa waay fariintada marka fariintada waxa weeyaan inamada waxaan ula xidhiidhay xidid mid aataan wadaagnaa sababtoo waxa weeyaan baalashii lagu duulayey haddaan horta midna waxaan kasii yar hor dheecanaya ama ummadda soomaaliyeed u sheegaya gudoomiye ku-xigeenkii guddiga taakuleynta iyo wacyigelinta sheekh baaruud allah xafidahullah xoogaa naga yar xanuunsanaya inay ummadda soomaaliyeed daafaha adduunka joogta ay u soo ducayso inuu caafimaad sareecana ilaahay siiyo ducada soomaaloo dhan iyo ciidanka iyo dadoo dhan ay u wada ducaynayaan ducada ilaahay u aqbalo inay ugu soo duceeyaan inuu caafimaad degdega siiyo oo sareecana taasina waxa weeyaan maaragtay aan u dirayo sheekheenii sheekh baaruud dhammaanteen ilaahayna hay naga aqbalo ducada aad u ducayseen aan u wada ducaynay tan waxa weeyaan dhalinyartan isxilqaantay ee midnimo qaran marka aan social mediaha ka arkay anaa la xidhiidhay maasha allah xiriirkii aan la xidhiidhay inuu caawa midho dhalo oon aan tv qaranka ku soo xidhno ay ka hadlaan taakuleynta ciidanka iyo siday u garab joogaan iyo soomaali baa leh dareenka ay ku leeyihiin iyagoo qurbo jooga waxa weeyaan dal shisheeye waa dareenku joog marka waxa weeyaan waxaan ogahay dhibta haysata aniga laftigeyga qurbaan ka yimid dhibta haysata dadka qurbaha ku nool ama ku sokaha ku nool ama ku shisheeyaha ku noolaada waxaan leenahay dhalinyarta iminka SYL marka laga sheekeeyo waxay ahayd in number bay ahayd mise tan maanta waxay noqdeen dhalinyarta midnimo qaran iyo kuwo kale oo meelo badan ba iska xilqaamay oo SYL dhalinyartii la sheegi jiray calankeennan soo dhaliyay maaragtay dabka shiday inay dadkooda dabka ay hiigsadaan oo la yidhahdo halkan uu dabka ka shidan yahay aan dalkeennii seen u xoreynaa maantana dalka dib baa loo xoreynaya waa siduu maanta madaxweynuhu khudbadiisa ay ku jirto dalkan waxaa xoreyn kara oo xor ka dhigi kara waa haddii ciidankeenna maanta aan garab joogsanno oo siday dhiigooga adduunka waxa ugu cajiibsan ninka naftiisa hura ee yidhaahdaa anaa diyaara oo waan u dhimanaya hadday gabadh tahay iyo hadday wiil tahayba daafaha maanta jooga soomaaliya oo dhan ee dabka qaatay ee cadowga la dagaalamay ee soomaaliya inuu soomaaliyadeedii iyo tu ka fiican ay noqoto waxa weeyaan qarbaha ama dowladaha shisheeye ee ciidankan shisheeye ee nala jooga kama abaalka darayno soomaalidu waa dad asala waa dad aanan dadka kale adduunka oo dhan qiimo ay lahayn qiimahooga uu ka sareeyo Soomaaliya waa dad istaakuleeya taakuleyntan iminkaan ka hadlayno sharci bay u leeyihiin oo waagii hore dadkeenu waxa la yidhi baadiye markay ahaayeen geeska gees hadduu qofku tegayo waxba ma qaadanaysa hay wuu iska baxayey si aabbiyi hooyadii ka horeeyaan waxaa reerka ugu horeeyuu tago ayaa barin jiray
reerku kolkaa kama ay daali jireen ma odhan jirin kanaana soo maray iyo kanaana soo maray ma jirin marka waa haybadda ummadda Soomaaliyeed dhaqanka buuxa ee adduun oo dhan kaga suntannahay waa taas boogta yare laynagu dhex tuuray qabiilkan waan ka bogsanayna qabiilkan boogta halkuu ina geeyey wuu socday raadkiisii wuu socday basasha waa la diiraa waxa maadhaan waxa weeyaan sida loo kolba loo diirayo way dhammaanaysaa marka qabiil waxa la yidhaahdo dhammaadkiisu waa zero wax alle wuxuu yahay ma jirto marka waxa weeyaan inaan iswalaashano oon SYL aan la tartanno SYL waxay ahayd 15 nin sida taariikhda lagu sheego ay Soomaaliya lagu og yahay taariikhda Soomaaliya ku jirta maanta tan la qorayo ee cusub way ka qurux badan tahay way ka horumarsan tahay way ka maskax badan tahay way ka dad badan tahay sababta iyagu 15 bay ahaayeen ma ay haysan maanta wacyigelinta halkan iminkaan joogo Australia laga daawanaya adduunka dibadiisa iyo koonihiisa yaalay Canada Mareykan Europe Australia Africa meel walba adduunka qofkii television Soomaaliya ugu jiro uu daawanaya walibana iminka televisionkii waxa sii dhaafiyay social media صح social media haddaad tiraadid adduunka dhan baa la arkaya soo marka waxa weeyaan qofkii maanta ku tartama inuu ciidankiisa ragga maanta Bakaara hadday joogaan Uganda iyo hadday Tanzania joogaan iyo hadday Minnesota joogaan iyo hadday London joogaan iyo hadday Mareykan meel walba ay joogaan maanta ragga baac mushtarka ah ee Ilaahay wuxuu dhiibay inay maanta sidoo inanka yar iyo gabadha yar dhalinyarta ah ee Soomaaliya jooga oo dhiigiisa u horeeyo in iyaguna haddayna dhiigii horeyn lacagtooda horaan sababta wax xaq weeyaan kan yaa ku qoray ma kitaab baa ku qoray inuu dhiig daadiyo hadduu dhiig daadinayo lacag qaadanayo la gareeyay waaba malaa'ig be dhiig ma qaato mishaar soo marka wax weyn maadaama halka uu isagu gaaray digriga ninka qura ee dhaafi karana waxa noqonaya ninka isna aanu ma soo gaarin oo ma joogin meesha oo ciidan kama mid noqon kari waayay waan ka noqon kari waayay sababtoo ah meel ka dheer baan joogay waqtigu ima fasaxayn meesha anigana tii ila gudboonayd waan bixiyay oo waa kan soo marka haddaan waxoogaa kaftan ku daro madaxweynaheena qaranka markuu ra'iisul wasaaraha ciidanka siduu u taakuleeyay fikir buu keenay uu leeyahay waa in ciidanka la garab joogsadaa soo marka ciidankii la garab joogsanayay 6 bilood uu joogay hay hanqalka la wada taageen ayaantii habeenkii markii la doortay wax xabada u wada rideen ilaa madaxweynayaal baa soo maro horeyba maartay la isku ciidan madaxweyne u bedelayay Soomaaliya kamay dhicin sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha qaranka habeenkii la doortay sidoo ciidanku u farxay oo maartay magaalada Muqdisho ku joogay oo ku noolama habeenka nacam waxa la moodayay inay maartay dalkii rogmaday farxadda iyo maxabadu isqabsatay qof kuma dhaawacmay soo marka waxa weeyaan yaantaasi waxa uu sida loogu farxay ama oo madaxweynuhu waxa weeyaan wuxuu soo qaatay reference ka wuxuu sitay daliisha inuu ciidanka garab joogo maanta ninka dambe ee madaxweyne inuu isku soo sharaxa doonaya waa inuu haystaa statementka bangiga macluumaadkiisa wuxuu dalkan hawgashay oo ciidanka ka qayb galay taakuleyntiisa guud iyo dibadba waxay noqonaysaa hadduu ra'iisul wasaare noqonayo iyo hadduu madaxweyne noqonayo iyo hadduu parliamentarian noqonayo baarlamaanka laftigiisa kii habarta lagu soo baxay taqfadaloolskiyo ma waxa weeyaan keer dalkan wax u soo noqday صح soo marka waxaan baarlamaanku waa inuu ka bilaaba intii dhalinyarta yare isxilqaantay si isku xilqaamay iyaguna isku xilqaamaan inay bangiyada tagaan oo nin walba taakuleynta ciidanka oo ku yeeshaa taariikhda magaciisa laga hela haddii magaciisa laga waayo baarlamaanna ma noqonayo madaxweynena ma noqonayo ra'iisul wasaarena ma noqonayo sababtoo ah waa in inaga hadda arinta waan isku tashan karnaa Soomaali wax ka fiican oo ka Suuriya fiican adduunka ma jiro dad isla Suuriya ma jiro anaga Yurub markaan wada joognay ninka Ethiopiaga ama ninka Kenyaatiga ama ninka Afrikaanka hadduu dab ku dhacayo mid walaalkii ama in adeerkii ma oranayo dabka ka weeca ma halkan meeshan waxa baa jira ma oranayo Soomaaligana wax weeyaan wuxuu kaaga imanaya koona ilaa koona anaga weligii markaan Yurub tagnay meel walba oo tagtid
meesha ugu magaalada ugucdeeda meesha centerka ayay meel fadhiistaan mar alle markaad ka soo dhaadhacdi tareen ama diyaarad Soomaalidu xagee fadhiisataa waa oranaysaa reebel ma xagee fadhiistaan soo marka waxa weeye Soomaali qiimaha isla leeyihiin wax weyn isagoona garanay inuu yahay ninkani hooyadii soo dilay ma garanayo buu gacanta qabanaya gurigiisu geenaya markaasuu leeyahay halkeed ku dhalatay halkeed sida ayaa kuugu dhow markaasuu dad la doondoonanaya marka u horeysa dhaxanta kama tagayo ninka Ethiopian iyo Kenyaatiga iyo kuwan kale iyo cadaanka iyo madow wax oo dhan halka bay iskaga tagaan gidaarkaaba caawada fadhiya ilaa intuu isdhiibaya ma intuu wuxuunsi u noqonaya Soomaali gidaar seexda adduunka ma jiro ka u horeeya Soomaaliya arka ayaa gacanta qabanaya marka Soomaali saab isku jeceshahay tan de Soomaaliyana wanaan ka sheekeynayno aqal bay u soo hooyanayaan qof ku shaqeeya 9 qof ay u soo hooyanayaan inta ka cunayaan ahlama odhanayo marka waxa weyn Soomaali nasabnimada iyo way u dhasheen marka maanta waxaan u joognaa ciidankeena qalabka sida inaga ku filan hadaan la isyeelin waa sidii gartii la yiri maxay odayaashu waa inagoona isyeelin garta goynaya marka waxa weyn Soomaaliya cunfigan iyo qabiilkan iyo waxan yare hoose ee la isu hadambeeyo bal horta dalkeenii baa duulaan lagu yahay marka waxa weyn bal inaan soo xidhano cirka dhulka iyo badaba si aan u soo xidhano ragga qaarkii oo maanta inaan afka halkan ku dilaac looma baahna dee oo taasi wax siyaasadda u taala rag ma soo hawaysan kareen Soomaaliya ma soo hawaysaneen Soomaaliya waa laga baqay sababta waxa laga baqaya oo haybad ku leedahay marka aad ciidan leedahay wada ciidankeenu halku gaaray iyo qiimihiisa waxa weeyaan taariikhay ku jirta waa buugag laga qoray waxay jiraan iyagoo muuqaala iyagoo qoraal jirta marka waxa weeyaan raganimadii la inoo diiday ama la inoo dilay at least haddana waxa weeyaan bal maanta meel kala duulaan kuma nihina bal intayadii dalkayga inaan sidii aan uga dhigi lahayn bahal galeenka aan uga saari lahayn waa inaan folowgeed qabanaa waxaan ku qabanaynaa inay ummadda Soomaaliyeed isku tashato waxay gudiga taakuleynta ama madaxweynuhu uu maartay digreetada ku soo saaray ama fikirkiisa uu faafinayay hore iyo dambeetaba waa wax ku mudan madaxtinimadiisa iyo madaxa wuxuu ku noqon karaa ama imika adduunka inuu noqday madaxweynihii ugu taageerada badnaa waxa weeyaan dadkiisa la arkaya sida uu taageeraya socodkii waagi dhaweeyay 2000 oo kiiloomitir buu socday ma ciidankeegi intii dhex socday sida wax laga ilaalinay ma jirin si loo bahdilay oo loo oranaya ciidan Soomaali ma haysato ciidan way haysataa tayale oo sida aanu sheegana malaa'iga de malaa'igta in la garab joogsado malaa'igtii cirka maana waa kuwa dhulka ku marka wax weyn adduunka kale ciidan anan agabkiisu u dhaneyn nin ciidan qoran kara ma jiro maba qoranay maba tagayba sababta wuxuu ku leeyahay de maxaa hooba qofku waa inuu u dhidiyo dhiig u daadinaya masada waa inuu helaa backup waa inuu helaa caruurtiisii iyo naftiisa haduu dhaawacmo haduu dhinto wixii caruurtiisa daryeel lahaa iyo si ku noolaan lahayn caruurtiisa iska dhaaf hooyadiis iska dhaaf aabihiis iska dhaaf naftiisa haduu soo dhaawacmo ayaana wax jirin soo marka rag waa malaa'igde ragga halka soo gaadhaya ina maartay meel walba fadhiga looga kaco raggan dukaanada kule magaalada markay inamadu laamiga taagan yihiin ay qandhuufta ku dhigto duruufta ku shaqeynaya dukaanka ay hor joogaan xaq haduu damiir leeyahay waa inuu ninka awsiyada sababta uu leeyahay halkan albaabkan iima furnaadeen haddana aduu hor joogaa soo marka wuxuu u hor joogaa waxa weeyaan isagu ilaalinaya isagii ilaalinaya lacag buu ninkan tirsanaya isagoo gaajoonayo dhaafaya isagoo gaajoonayo hor joogaa ninkan soo marka waxa weeyaan waa damiir xumade marka ninkii damiir loo marka damiir waa inay raggan baac mushtarka ee maanta Muqdisho jooga yaa ku filanba ama shirkadaha Soomaali ee dibadaha kule inaga oona midnimo qaran iyo dhalinyar iyo waxba la cadibin waxa ku filan warshadaha ragga iyo ragga kambaniyada waaweyn Soomaaliya dadkii Soomaaliyeed markay qurba tageen way wada najixeen majority inta badan way najixeen inta in yarba yaa dariiq khaldan martay boqolkiiba 80-90 Soomaaliya waxay noqdeen dad aanan dadka la mid ahayn oo la qabsanaya meel walba ay tagaan isla markaa la qabsanaya marka waxaan ka codsanaynaa baryama waxaan ka codsanaynaa oo xaq ugu leeyahay dalkan iyo dadkan ay xaq ugu leeyihiin inuu cashuurtii xaq dalkan ku lahaa
isagoo dibad jooga inuu bixiyo sababta taasi kolkaa waxa weeyaan waa nin dee ninka tegey marka waxa la Soomaalidu maxay oran jirtay ninka reerkiisa ka baraya ninka reerkiisa ma reer kale ka baraya nin labaad isagoo qurbo jooga inuu maanta waa looga soo joogay dalkeena burburkii iyo halaagii iyo kala caymadkii iyo beladowladii iyo jantaar rugantii Soomaaliya haddana way nooleed qof kasta oo qurbaha joogay dadkiisa iyo familkiisa intii ku xidhnayd mid walba wuu isxilqaamay markaan caruuraha iyaga wadano aan la xawaaladan tagina xawaalada maxaad ka doonaysaa hooyadii Allah naxariistay ya baa Allah naxariistay yaan u diraya markaan ila maxaa ma shaqaystaan iyagu nacam wax weeyaan marka intan inoo hadhay imika midnimo qaran iyo waxaan ku fikirayo waa dadkii ka soo haray Soomaalinimadii meese markay noqoto laba generation sida kuwa kale ay biyo ka badan iyo dalka badan ku afiyaan soo marka waxay noqonaysaa inuu wixii si hadduu dalkani hagaago hadduu dalku hagaago way imanayaan waxay baranayaan dhaqanka iyo habka Soomaali ay u nooshahay isku walaashato ee wax isku qabato si hadda qurbahan ku jooganay intay dhalaan haddana kuwii kala dhashaan waxba de isma ogaanay khalaas waxaan leenahay si ay ugu soo noqdaan dhaqankooda iyo diintooda oo inta badan waxa weeyaan anagu waxba nahay muuminiin inba waa anagu salaad tukanayo ayuu yiri arab waxa markaas uu yiri farxaan adiga adaa naga xaqlo natuji markaasaan idhaano arab mi adaaba diinta ahd oo afkaagi baa lagu qoray adigu natuji markaas uu yiri may anigu muslim baan ahay seef baa lagu muslimi adigu mu'min baa too samacna waa intaad maqashay baa diintii qaadatay waa dadka ugu qiimaha badan leh ma anagu qasab iyo seef iyo baashan la wata imika no qoor la nagama gooyin seef la nagama dhicin xoog la nagama sameyn wala diintu waa la way noola yimaadeen wadaadadii waan aqbalay magaranaysa oo walibana kuwii watay ama ay noola yimid siday u isticmaalayeen si ka wanaagsan oo waayo inagu halka waxa dhaqankeena ahaa wax wada cun ixtiraam oo sharaf badan lahaa marka waxa la moodayba inaan inagu diinta hore u sii haysanaba ayay intahay marka waxa weeyaan waxaan oo intaasoo araara oo maraya Soomaalidu dunta xariirta ay ka samaysan tahay maanta uma baahnin inay ajnabi waa inaan xishoono intan wax ka badan in ciidan ajnabi in si kala dhex joogo oo Soomaali baan kala celinaya waa ceeb markaan fiirino wali waxaan ku jirnaa barnaamijkeeni sax dhawaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kormeeray xarumaha ciidamada gobolka Muqdisho si fiican dhiirigelin intee leeg ay ciidamada ma koobi kartid anigu waan ka qayb galay dhowr badan baan ka qayb galay waxa weeyaan Soomaalidu waa iska wada gabayaa oo waxa weeyaan xabadikeen waqti keen qofna markuu hawna abwaan hayn abwaanku mid waxa weeyaan waa mid dhalada oo dhaxlay qof midna waxa weeyaan midna waa mid ka keenaysa waqtigu ka keenayo marka iyo golka fuul oo marka qofku ku fikiray marka waxa weeyaan nin walba ciidanka waxaad arkaysaa gebi way wada qiiraysan yihiin duruufta oo ku shaqeynayaan si u yimaadeen si u joogaan way arkayaan maanta kuwa agabka u dhan yahay siday u dhiiran yihiin ciidanka qalabka sida uma dhiirana dadka kale waayo markay wax dhacaan kuwa xabadda ku dhacda ama isku dhigaya waa Soomaali kuwan kale ay nala jooga kama abaalka darayno inta u dhimata dhiiga u daadisa waa kuwa iyagu soo marka waxa weeyaan inay dheeftiina ka badsadaan dibtiina ay Soomaalidu qabto de Allah ma qal ma xaq maaha marka waxa weeyaan ninkan markay garasho la'aanta iyo wixii waa waxba la inaga goynay dulmi aan galnay iyo la inaga goynay dulmigii ilaahay dambigu inaga mayray dariiq toosan baan imika ku jirnaa dawladnimo ayaa maarta nabadda iyo dawladnimada ayaan cagta saaray marka waxa weeyaan inaan ku sii jirno lugta hoostiisa ama surwaal jeexjeexan iyo kaba kala jeeda iyo inuu ciidankaygu wato oo raggan kalena ay wataan dharkii ugu dambeeyay saa isku bedelayaan waan ka qiiroodaa markaan meelaha marayo duruufta aan arka ciidankayga iyo kuwan kale waxaan isku garab dhigi karaa maaha anaa isku geystay Soomaaliyada isku geysatay sababta ah kuwii ay tababari jireen ee Muqdisho iman jiray ee la tababari jiray Soomaaliya balidogle iyo
iyo awdal shishadeeda iyo meel walba ayaa lagu soo tababarayay ee garanaya farfar kule halkanaan mari jirno sida Soomaaliya iyadaa macallin ahayd marka ina maanta kuwii macallinka oo ahayd ee iyadu wax baraysay ay maanta wax iiga sheekeynayay ninka taliyaha waan ku qiiroonayay wuxuu marayay xaduudka ayuu marayay marka kuwo ma doonana inaan sheegno ayaa soo maray ninkani markaa taliyahani iyo meeshii kolkuu marayay ayay arkeen qoladii ajnabigii way joogsadeen way naxeen ninkani wuxuu watay 4 askari oo qura iyaguna waxay ahaayeen guuto dhan oo guuraysa joojiye intuu yidhi hor joogsaday wadi second gudahood balidogle waxaa ka kacay diyaaradihii oo san ugu dul joogsatay isgaarsiintii ciidanka qalabka Soomaaliyeed siduu u horeeyay nacam marka in ma fiicantay wuxuu yidhi sida diyaaradda markay dul joogsatay sidaa buu yidhi diyaaradda buu saa ka sameeyey nacam ma fiican tahay waa salaan diyaaraddii buu saa ka sameeyey soo markaas si kale iyaguna iskugu jawaabeen raggii waxay yidhahdeen nacam inuu dhulku la go'ay raggii guutada dhan aha inuu dhulku la go'ay oo ciidankii adduunku waa 4 askari iyo diyaarad yar moogtahay marka waxa weeyaan haybadda ma inaan ka qeyroodo ma rabi marka ninkaasi waan la sii sheekaysan kari waayay sababtoo wuxuu ka sheekeynayo sida haybadda Soomaaliya u lahayd ciidanku soo ahaa nacam sharaftay lahaayeen sida dadku uga baqayeen iyo maanta kelmada aanan u qalmin la oranayo marka malaa'igtu dharka loo xiray kharashkooda la siin wax hor joogsanay ma jirada birba ahayn marka horeba marka ciidanka waxaan leeyahay oo meel walba ay joogaan adduun Soomaaliya waxaan leeyahay waqtigii adkaa uu soo dhamaaday waka dhalinyartii qurbaha joogtay ay inii wada dhiiran yihiin marka inamadan dhalinyartan ana la xiriiray kuwa kala iyaguna wiiga dambe noo soo galaya oo iyaguna adduun daafaha adduunka jooga oo iyaguna midnimo qaranuna iyo intii kale isxilqaantaba midna waan ka degayaa oo sida shuruudda u taala guddiga taakuleynta iyo wacyigelinta uu madaxweynuhu magacaabay qof inta uu yiraahdo xaflad baan qabanayaa oo lacag baan ururinayaa oo xaraan total waa xaraan qofna qof wakiil kama aha qof kasta intuu taga bangiga ayuu la galayaa dhil u leeyahay waa kii yar ku sheegay Axmed nacam oo message ku soo dhacaya markuu qof kasta wuxuu hayraada ha badnaado isaga iyo alihii iyo rasiidka hadhow toole laga arkayo bil walba statementka waxay leeyihiin gudiyaal gudiga ninka oo ah ama qofka ku xiga ayaan u diraynaa oo bangiga ayuu la soo xiriiray anagu waxba ma oran bangigu la soo xiriiraya oo u diraya bishan inta qof midnimo qaran lacagta bixisay walibana ma doonayno inuu bilna bixiyo bilna ka bixin waayo 3 biloodna maqnaado 3 no qofka agreement ka gala farxan waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka fariinta u dambayso aad u diraysa shacabka Soomaaliyeed maxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxaan kula soo hadlaynay hore oo dhan iyagu baan la hadlaynay waxaan leenahay on ku boorinayaa ama aanu sheegayaa inayna qof isagu intuu yiraahdo waan isxilqaamayaa ama guddi baan samaysanay oo lacag baan ciidanka u ururinaynaa waa xaraan muqaddaca waa xaraan waa inuu qof kastiba shakhsigiisa oo bangiga dhil la gala bishii markay gaadho $10 $20 $15 $5 intaaba ay gol waa in lagu xisaabtami karaa meese inay noqoto bilahel bilawaa ma marka dadka ummadda Soomaaliyeed ee daafaha adduunka ku jooga waxaan leenahay hadday Soomaali musuqmaasuq la sheegayo sidan anagu musuqmaasuq ma aaminsaniba marna waxay leeyihiin lacagta adduunka iyo aamada iyo waxaan oo dhan waxa weeyaan Soomaaliya ceeb ma laho dariiqii saxiibay martay haddana musuqmaasuqa halka ugu hooseysa dhagowgii afkooga ma ismaqal sidee waxa uu oran karaa marka naguma niyad jabin karaan ummadda Soomaaliyeed xalaal ay u dhasheen xalaal bayna u dhimanayaan ciidankoogana daacad bay u yihiin waxaan ku boorinayaa oon ku gabagabaynayaa oon ku dhiirinayaa ummadda Soomaaliyeed ee maqlayso guud iyo dibadba
dee inay khalad tahay garama ilaahay baa iga garan sababta horaa loo yidhi dee malaa'igta ifka inoo joogta waa ciidankeena soomaaliyeed waxa la garab joogsado maaragtay hadduu alla qadarana haybadii soomaaliyeed iyo qarannimadii soomaaliyeedna taasay kuna soo noqonaysaa la-aantii walle oo bileewa meel aan gaarayn oo baxla galeenka meel walba iminka waraabo walba soo galayo xoolaheennii iyo haw cunaya dheemankeenni iyo dahabkeenni iyo wixiina haw cunaya oo nin walba usoo feedhanaya ragga looga dhaaranaya ee dib looga joogsanaya waa ciidankeenna dibad iyo cir iyo dhulbe waxa weeyaan ilaahay hayni asturo inaan is asturno inagu maaragtay aan marada isku qabanno waan qaawanahay qof kale inama huul nin kale inama tirayo marka inaan inagu isku tashanno oon inagu cawradeenna asturnaa cawradeennii baa maanta cawradeennu waa ubadkeennii hablaheennii cawradaheennii waalidkeennii baa maanta adduun meel walba ku dhibaataysan soomaali la leeyahay markaas soomaali haybaday leedahay waxay ku leedahay dalkeyga hooyo soomaali baa leh dad kale ma laha marka waxa weeyaan guntiga dhiishaan iskaga dhigno waxaan u soconnaa safarkaa dheer aan iswalaashano taabaan kaga baxaynaa buuraha iyo hagaardaamooyinka laynoo qoday dariiqii quruxda badnaa ee dowladda nabad iyo nolol ay noo tilmaamaysana taasaan ku gaadhaynaa wabilahi towfiiq aad ayaad mahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabada barnaamijka taakuleynta ciidamada waa caawa aad ku daawateen ama aad ku maqasheen doorka shacabka soomaaliyeed ay ka qaadan karaan dhiirigelinta iyo taakuleynta ciidamada barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa farxaan muuse cige farxaan xidig oo ah xubin ka mid ah guddiga taakuleynta barnaamijka waxaa ila socodsiinayay anigoo cabdulaahi axmed kulmiye dhinaca kaamirada waa axmed qadar maxamed dhinaca farsamada waa maxamed cabdixakiim bunka intaan barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono iyo toddobaadka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh farxaan aad u mahadsantahay aad u mahadsantahay kulmiye